maamulka cusub aan soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa waxa weeyaan inay isbartaan waxa weeyaan jaamacadda Timcadde haddii gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xogayaha iyo xogin taliyaha saldhigga uu yahay iyo gudoomiyaha waxbarashada guud ahaanba inta markaan ka tago kullay waan dareemayaa waxa weeyaan tuunka yaala waxa weeyaan xagga maamulka waxa weeyaan dawladda hoose ee Wajaale jaamacadda Timcadde runtii laba arrimood bay saameyn ay ku sameysay degmada marka laga tago in la bilaabo ama wax weyn arday ku jiro caafimaadka waxaan dhaqaatiir ama kalkaalisooyin caafimaad oo loo deeday tiray isbitaalka weyn maanta waxaan hubaa runtii inay kaafisay oo wax weyn adeeg la qabto caafimaad baa ugu horeeya in wax weeyaan shaqaale badan oo jooga isbitaalka weyn ay runtii ay qayb ka geysatay jaamacaddu ay hadda ardayda jaamacadda yihiin shayga labaad oo runtii aan inta badan la dareemin waxa weeyaan beenaal marxatigiisu fogayaaba la yiri xoghayi baa jooga warqadii feasibility study-ga aan ka maamulahan jaamacadda ku sameynay oo ka sameynay Wajaale waxa lagu dhisay waxa weeyaan banka dhexe ee waxa weeyaan Jamhuuriyadda Soomaaliland si shilinka loogu qabto muddo 4 cisho anaga iyo afar macallin oo kala u joognay assessment-kii aan sameynay waxay noqotay inaan guri u galno runtii iyadoo la ogyahay duruufta Soomaaliland shilinku inaanu jirin haddana waxaanu waxa weeyaan boqolkiiba boqol aanu dhiirigelinay in shilinka waxa weyn lagu dagaalamo in magaalada ka hirgalo dawladuna ay dhowrto si loo badbaadiyo qasadkeegu wuxuu ahaa lacagta kaashkee la talaabayo ee waxa weeyaan muwaadiniinteena ganacsigeena ay ku shubayaan baanka talowga oo iyagoo ku waxa weeyaan ku andacoonayay inaan baan shilinka aan birta qabtaanu jirin marka talooyinkii waxaanu soo jeedinay wali imika dhismi baa socda in Soomaaliland shilinkana uu xoojiyo sidoo kalena uu birta runtii marka dambana uu qabto isagoo in kastoo uu qaban laakiin birta ay ku kaysanaa ganacsado haddii in case Ethiopia ka dhacdo lacagta muwaadiniintu ay badbaado inta markan ka tago duruufta dhaqaale ee waxa weeyaan soo gala dawladda hoose waan ognahay wax badan ma qaban karo oo jaamacadna ma dhisi karo contribution adagna ma geysan karo jaamacaddan runtii waxaanu ka codsan lahayn in baldulun aan jaamacadda maamulkooda dhismaha u doontaan bal haddii dhul lagu caawin karo jaamacadda in waxa weeyaan lagu caawiyo ta kale markaan ka gudbo maamul ama gudoomiye doorasho nagu soo foolle hore waxa weyn degmadan Wajaale xildhibaana laga soo doortay nimankii waxba oran maaye wax badan kama geysan sanadka maanta tartan baa lagu jiraa goboladii degmooyinka meel walba Wajaale waxay u baahan tahay dad u hiiliyo oo halgama waxa weeyaan waxa yaqaanaan oo kaliya hadan dhaliilo cabashooyinka sa loo sheego wuxuu inay ritaan oo xildhibaanada laga soo doortaa ama baarlamaan ha joogo ama degmo golo deegaan ha loo doortay inay degmadan wax u soo dhiciyaan waxa weeyaan degmadu runtii dhaqaale badan ma laha laakiin waxa leedahay ganacsato badan iyo xoog badan iyo dad badan bay leedahay maamulkan inta la cusub yihiin baa la jecel yahay haddii ka faa'iideen ardaydan adeegsan bulshada adeegsan ganacsatada adeegsan oo idan contribution ayna ka qaadin oo dhulkooda lagu dhiso ilaa iyagoo dhulkooda walgaleeyay kuma qaadanaysan ayadaan ku qasbin bari markii muddo ka soo wareegta dhaliil soo baxdo dhaliishaasi buunbuunin marka talada soo jeedina in la qasbo dadka wax weyn qof walba iyo hortiisa iyo wax weyn drainage kala sameeyo diiqa ugu badan laga cawda wadadaasi qaali baa haydo xataa sida lagu dhisay waan ogeyno dawladda hoose ma badhaysan karto wado infrastructure-ka haddana tiibay diiqa koraysa in arrimaha noocaas la badbaadiyo runtii waan soo jeedinayaa dhalinyaradan inaga dambeysay wax weyn qalin jabinaysa waxa weyn iyaguna inay dawladda iyo maamulka ay runtii waxa weeyaan meeshii hirdan baa jira dadkii aan waxba baran ee waxa weeyaan juhaladii iyo waxa kala batay dadkii wax bartay kii wax bartay baa aamusay wax sheegi karla waxa ka afdheereynaya oo ka hadal badan kii aan wax baran maamul dhaliilaya isagu ma raba in qof shahaado lagu soo doorto qof professionkiisa lagu soo xusho dhaliil buu la taagan yahay isagoo la dagaalamaya jaamacadaha iyo dadka wax weyn aqoonta leh waxaan lahay iyaguna inay adeegsadaan oo wax weeyaan xagga positive-ka maamulkooda ku taageeraan maamulkana iyaga adeegsado la iskaashado wax weyn tartanka doorashada soo dhacaysana bal sidii xildhibaano wanaagsan looga soo dooran degmada in maamulka role ka qaato kolley beela iyo waa la keenayaa dad baa yaacaya bal inaad idinku role ka qaadataan oo ardayda laftirkooda aanay la noqon waa run kii jaamacad ka baxay ama kii wax isbidey aqoonay reer ma dhextigi karo ma oran karo anigoo reer hebel ahay doorta uu khajilaya kii baa kaga afdheereynaya jaahilkii ayaa buuxinaya shahaado fayga qaadanaya waxa weyn doorasho galaya hadhow toolana dhaliishii la imanaya marka talada weyn wada qabnaa guud ahaan ama Gible ama Wajaale ama degmooyinka gobolka oo dhani
dhaliishii hore way nawad haysatay tu dambeeyaan inagu dhicin doorashadaasi soo socota aynu ka faa'iideysanno. Wassalaamu